waxaa maalmihii ugu dambeysay baraha bulshada aad u gilgilaya amba aad hadhayntiisa ugu badnayd fanaankii weynaa ee lagu magacaabi jiray Sharma Boy. ashhadu an laa ilaaha illa allah. runtii fanaankaas oo kasbaday quluub aad u badan dhalinyar aad u badan kuna kabsaday hibadiisa saxda ahayd oo ku soo bandhigi jiray. Sharma Boy ayaa waxa uu ka soo baxay nolol ahaan marxalad aad u adag isagoo sagxadda ka soo biloobay kuna heesi jiray meelo aad u qadiimi ah haddana saaxadda fankana ka gaadhay heerkiisa ugu sareeyay ilaa heer madaxweynayaal u heeso runtii laguna casuumay xirfadaha ugu waaweyn kuna guuleystay abaalmarino badan oo kala duwan oo ku saabsan dhanka fanka. haddaba wiilkan Sharma Boy ayaa hore uga dhawaajiyay inuu ku waari doonin saaxadda fanka ayna marna ahayn riyadiisa iyo rajadiisa una ogaa inay yihiin waxaan dambi ilaahay baan ka magan galo fanka inaan ku duqo ma rabo aadiyan rajadeeda ma aha aadiyan taasuu aabihii uga duceeyay runhaantii oo mar uu la hadlayay aabihii uu ku lahaa ilaahay aabbaha ka soo madoobay waxaan waa ilaahay ka rajaynayaa wiilka ilaahay inuu yahanuujo sidoo kalena warbaahinta qaar ka mid ah oo wareystay kuna sheegay inuu fanku gebi ahaanba yahay wax xun. ugu dambeyn wiilkan ayaa waxa uu ku jiray fanka saaxadiisa marxaladihii ugu fiicnaa marxaladihiisa fanka heesiisaba heesna ka saameyn badan tahay haddii wanaag ay sheegi lahayd iyo haddii ay xumaanba soo gudbin lahayd labadaba ay iskugu jireen. wiilkan ayaa waxa uu codkiisa iyo hibadiisa talentiga uu ku haystay muddo 3 sano ah saaxadda fanka kaasoo cid kaga daba hadli jiray ayna jiray warbaahinaha ugu waaweyn sida BBC-da sidoo kale siyaasiyiin waaweyn ay ereyada ka mid ah heesiisa ay ku soo qarin jireen mar ay ku jireen warbaahinahooga amba shirarkooga. runtii heesiisa ugu saameynta badnaa haddii aan laba ka xasuusino waxaa ka mid ah heesii waddanku shaqo male taasoo kale waxay hees aad u saameyn badan waqtigeegiina ku soo baxday. sidoo kale heesii kale farmaajo uu qaaday iyadana ahayd brank miya farmaajo fiilada miyuu ka baxay runtii iyaduna waxay ahayd hees waqtigeegu munaasibka ahaa uu qaaday taasoo saameyn badan ku yeelatay gilgishana baraha bulshada ee Soomaaliyeed iyo dhalinyar badan oo aad u badan. haddaba wiilka Sharma Boy ayaa sanadadii ugu dambeysay amba sanadkii ugu dambeeyay dhowrkii bilood ee ugu sii dambeeyay ku sugnaa ariga Mareykanka halkaas uu ka soo bandhigay bandhigyo aad u waaweyn oo runtii saaxadda Mareykankana gilgilay dadkii halkaan marqaan badan amba waxyaabo badan oo jawdigasha ugu sameeyay halka kuma soo sameyn heeso badan laakiin dhowr heesood ayuu ku soo sameeyay. haddaba Sharma Boy ayaa wiigagii ugu dambeeyay waxa uu go'aansaday inuu saaxadda fanka gabi ahaanba uu ka bixi doono taasoo ummadda intooda ugu badan ay ku farxeen runaantii ayna tahay wax lagu farxo maadaama fanku uu yahay waxyaabaha ugu xun ee lagu dhinto khaatir xumana ay noqon karayso wax sii waarana ay noqon karayso. Sharma Boy ayaa gabi ahaanba waxa uu channelkiisa ka saaray wixii barnaamijyo ku jiray fanku saabsan haddaba codkiisii halaasiga ahaana waxa uu ku qaaday runtii nabi amaan aad u qurux badan oo aad u qeyro badan. runtii ilaahay waxaan uga baryaynaa saa uga madoobayay inuuna dib ugu soo noqon saaxadda fanka. runtii dad badan ayaa dhaleeceynayay dad badan ayaa ku lahaa maxaad fanka uga tagtay dad badan ayaa waxyaabo kala duwan sheegayay laakiin waxa uu yiri waxaan qaatay go'aankii ugu wanaagsanaa noloshayda kaasoo ayna gabi ahaanba fanka aan ka fadhiiso. runtii waxaan ognahay fanaaniin ka waaweyn oo ka saameyn badnaa oo fankana dhaqaale ahaan ugu tiirsanaa inay fankii ka fadhiiseen maanta ay noloshii shalay ku noolaayeen nolol ka qurux badan ku nool. Sharma Boy waxaan u rajayn doonaa inuu shaqooyin fiican oo aad u qurux badan heli doono saaxadda fanka dhaqaale uu ka heli jirayna uu halkan kale ka heli doono insha Allah. ilaahay baa faraj badan u furi doona maadaama uu ka soo fadhiistay saaxaddii fanka ee aadka u kharibnayd. ilaahayna waxaan uga baryaynaa hidaayada iyo qulubtiisa uu soo geliyay inuu ilaahay ugu sii wado. billahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.